maxay tahay saddexda arrin ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya uu u soo hordhigay dadka shirka qayb ka ahaa ee magaalada Nairobi ka socday sidaasay dawladda Soomaaliya ugu qanci doontaa xukunka Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale laba arrin oo ra-iisul wasaaruhu sheegay in markaasi Axmed Madoobe uu ku sii joogi karo kursigiisa maxay tahay halkan ayaan kugula wadaagi doonaa xogtaas iyo waliba faahfaahinteeda waxaan ka codsanaynaa markuu ugu horeyso muuqaalka haddii uu ku soo gaaray fadlan adigoo mahadsan inaad noo like gareyso ama like-ta aad noo taabato like-ta saaxiibo fara badan ayay gaarsiinaysaa siina share garee si markaasi dadyooga oo dhan ay u arkaan waxaan sidoo kale ka codsanaynaa inaad boggeena follow soo dhahdo oo aad ka mid noqoto saaxiibada maalinlaha ee wararkeena halkan ugula socda mahadsanidin saaxiibo soo dhawaada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo u joogay safar markaasi shaqo iyo waliba sidoo kale xalinta khilaafaadka culus ee kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa waqtigan u muuqata in markaasi saddex arrin oo ra-iisul wasaaruhu soo hordhigay ganacsatada kala duwan ee Axmed Madoobe ku heybka ah iyo waliba isaga laftirkiisa ee magaalada Nairobi shirkaasi ugu qayb galayay iyadoo oo saddexdan arrin haddii Axmed Madoobe uu sameeyo ay u muuqato inuu sii joogi karo kursigiisa ay dawladuna go'aan ay ku sii qaadan karto taasi oo ah mid ayaan halkan idinkugu faahfaahin doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaana arrinta koowaad ku sheegay in haddii Axmed Madoobe uu ogolaado in ciidanka ee Jubbaland ee jooga ee magaalada Kismaayo iyo waliba sidoo kale deegaanada kale ee markaasi maamulka Jubbaland uu ku wareejiyo dawladda federaalk ee Soomaaliya si markaasi ciidanka oo dhan ay u maamusho dawladda ee Soomaaliya una muuqato oo dibna ugu laabto waxyaabihii ama qaladaadkii uu sameeyay waa qodobka koowaad ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dadka ganacsatada ee dhexdhexaadinaya iyo mas'uuliyiinta dawladda Kenya ee halkaasina shirka u joogay uu soo hordhigay qodobka labaad ee ra-iisul wasaare Xamse uu isagana markaasi sheegay haddii Axmed Madoobe uu ka laabto doorashada uu isagu isku caana shubay intuu fagaaro uu soo istaago oo uu caddeeyo in ay qalad ahayd uuna ka laabtay oo mar kale doorasho kala dal ee markaasi laga qaban doono magaalada Kismaayo oo uu soo istaago banaan cid uuna sheegto in ay tahay wixii dhacay ay qaladna yihiin waqtigan la joogana diyaar u yahay inuu mar kale uu xalliyo taasina ay u muuqato in dawladda Soomaaliya ay ku qanci karto qodobka saddexaad ee markaasi ra-iisul wasaaraha uu soo hordhigay dadka ganacsatada ee shirkaasi qaybta ka ah ayaana ahaa haddii ra-iisul wasaaraha waa markaasi Axmed Madoobe uu qorshaha iyo abaabulka ee uu ka wado deegaanada Jubbaland uu joojiyo oo uu markaasi qayb uu kala noqdo madaxda maamul goboleedyada dalka ee waqtigan la joogay sida weyn markaasi ee ugu shaqeynayo nabadda iyo horumarka ee Soomaaliya qayb uu ka noqdo taasina waxay markaasi cadeen u ahaan doonta in Axmed Madoobe xukunkiisa uu sii joogi karo loona garowsan karo ee markaasi doorashada ee markaasi uu isaga qorsheynayna markaasi halkaasi lagu dhaqan gelin doono sidoo kale qodobka saddexaad ee adag ee ra-iisul wasaaraha uu ku xiray oo uuna tilmaamay ay sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in dhammaan geyiga Soomaalida ay degto dhammaantiis markaasi laga qabanayo doorasho qof iyo cod aanan laga qabanaynin doorasho markaasi dadban misna la isku caana shubayo haddii Axmed Madoobe talaabada hadda uu qaaday uu ka laabto una markaasi laabto bulshadiisa uu cadeeyo in dalkan la aadayo oo uu isagu ku mowqif naqanayo hadafka ugu weyn ee dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso ah in markaasi dalkan uu aado doorasho qof iyo cod taasina ay u muuqato in Axmed Madoobe hadduu soo sharxan ay dawladda ay garab ku siin doonto dhinaca kale ganacsatada ayaa iyaguna tilmaamay waqtigan la joogay in aanan loo baahnayn khilaaf dagaal oo sababi karo dhimasho iyo waliba dhaawac laakiin wax kasta oo ka dhaca deegaanada Jubbaland mas'uuliyadeeda dawladda ay dhabarka ay saarato oo walibana wax kasta wada xaajood ama hadal lagu xallin karo taasi oona ah wadada kaliya maanta u furan dawladda inay si ambaqaado ama ay go'aan ay ku gaari karto inkastoo deegaanada Jubbaland dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dhamaantood inta badani ay si weyn dawladdu u taageereen laakiin kaliya fikirka iyo kooxda yar ee Axmed Madoobe markaasi uu haysto ay ka aragti duwan yihiin taasina wada hadal lagu xallin karo ama markaasi wixii dhibaato weynba u keeni kara si gooni markaasi loo xalliyo dadka ganacsatada ah ee markaasi ku heybka Axmed Madoobe iyo waliba soo kale Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in Kismaayo iyo Jubbaland waqtigan la joogay aanan wax dagaal ah la gelin kareenin loona baahnayn ama markaasi colaasaan saaneed aanan la gelin kaliya wax kasta wada hadal iyo wada xaajoodna lagu xalliyo wixii warar kale ee ka soo kordha ee shirka iyo waliba sidoo kale dadka ee markaasi kulanka xasaasiga halkaasi ugu socda ee jooga bartanida kula wadaagi doona si share garay muuqaalka meel dheer nal gaarsiin qaybta hoose faalada commentiga ayaad nagu wadaagi kartaan muuqaalkana
meel dheer nala gaarsiiya bogguna kusoo biri mahadsanidin